Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kusoo dhawaada barashada luqadda ingiriisiga caawa waxaan baranaynaa personal pronouns waa magacyaalada luqadda ingiriisiga aan ku bilaabee fasiradooda I waa aniga, you waa adiga, he waa isaga, she waa iyada, it waxaa loo isticmaalaa xayawaanaadka, jamaadaadka iyo waxyaalaha nooleyn iyo waxyaalaha nool oo ah xayawaanaadka keliya. Waxyaalaha nool bini'aadanka looma isticmaalo it. It waxaa loo isticmaalaa xayawaanka iyo dhirta iyo waxaa loo isticmaalaa waxyaalaha kale ee nooleen sida book, pen waxaas oo kale. We waa anaga, you waa idanka oo jamac ah, they waa iyaga. Marka aan ku celiyo I waa aniga, you waa adiga, he waa isaga, she waa iyada, it waa isaga ama iyada, we waa anaga, you waa idinka, they waa ayaga. Marka iyadoo tusaale leh oo jumlo ku jirto ayaa idin tusi doona haddii Ilaah yiraaho. I am a student. Waxaan ahay arday. I aniga am a student. Aniga waxaan ahay arday. You are a student. Waxaa tahay adiga arday. You are a student. Waxaa tahay adiga arday. He is a student. He is a student. Isaga waa arday. She is a student. Iyada waa ardayad. It is a book. Waa book. Aan ku celiyo. I am a student. Waxaan ahay arday. You are waxaa tahay adiga a student. Arday. He is a student. Isaga waa arday. She is a student. Iyada waa ardayad. She is a student. Iyada waa ardayad. It is a book. Waa book. It marka waa ujeedaa waxa loo isticmaalaa. Marka waxaa kala aqoonsataa jumlooyinka soo socda. You markaan waxaan u isticmaaloonaa singular ayaa u isticmaaloonaa oo ah singular oo ah mufrad. Jamac maaha markaan. You are a student. Laakiin markaan jamac u isticmaalano student waxay isku bedeli doontaa students ardayaal. Marka sidaas ula soco you marna waxaa loo isticmaalaa jamac oo magacyaal ah oo adiga idinka ah marna waxaa loo isticmaalaa adiga oo singular oo magacyaal oo adiga keliya ah. We are students. Waxaan nahay ardayaal. We are students. Waxaan nahay arday. We are students. Waxaan nahay arday. You are students. You-da markaan waa jamac. Student keliya aad markii qof keliya loo isticmaalay. Waxaad tihiin arday. You are students. Waxaad tihiin arday. They are students. Ayaga waa arday. Ayaga waa arday. Ayaga waxay yihiin arday. We are students. Waxaan nahay arday. You are students. Idinka waxaad tihiin arday. They are students. Ayaga waa arday. Marka cashirkii oo personal pronounska ku saabsanaa magacyaalada luqadda ingiriisiga inta ayaa kusoo gabagabeynaynaa. Intaa ku kulmi doona cashar midkaan lamida waxaan idinkaga tegayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.